waa kulan si harsara loo soo agaasimay isla markaana looga hadlayay xaaladaha kala guurka iyo marxaladaha uu hadda dalka wajahayo maadaama lagu guda jiro xilli doorashooyin iyadoona markaasi ay kasoo qaybgaleen kumanaan shacab ah oo ka kala yimid 17 degmo ee gobolkani Banaadir waxaa sidoo kale halkaasi ku sugnaa dhammaan mudanayaasha musharaxiinta madaxweynaha sanadka 2021 waxaana halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka qaarkood oo sheegay in dalka hadda marxaladda uu ku jiro ay tahay marxalad dadku ay ka wada baqayaan taas oo ay sheegeen in ay u dhowdahay in loo laabto 30 sano ee Soomaaliya burbursaneed baaqay u direen dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dalka oo ku aadaneed in dalkan uu ka shaqeeyo sidii doorasho nabad ah ay ugu dhici lahayd dadkuna ay ku wada qanacsan yihiin oday Soomaaliyeed oo jecel nabadda iyo dimuqraadiyadda iyo xorriyadda ha ilaawin sidii lagu doortay waxaan cod dheer ku sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee hadda kursiga ku fadhiya wadanka inuu ka qabto doorasho xalaal ah waqtiga yar ee loo dhiman 40 cisho ama waxa ka yara inaan gaarsiino wadankan marxaladda kala guurka qaar ka mid ah dhalinyaradii halkaas ku sugnaa iyo abwaanada ayaa dhankooda waxay sheegeen inay dalkan rajo wanaagsan ka leeyihiin baaqa madaxweynaha hadda wali wadaaye haddaad isleedahay intaad xaaraan samaysaad xaaraan maalin ku sii joogaysaa hayhaat wallahi ma dhacayso kidigiin isbiirsada xilbow gogol dhigaynaaye xilku galabta weynoo martiyo guurtii soor mudaane markii la gudagalay khudbadaha musharaxiinta waxaa ugu horreyn hadlay Mustaf Dhuxul oo ah musharax madaxweyne sanadka 2021 waxaana uu sheegay in dowladdan federaalka Soomaaliya oo majraha u hayo madaxweynaha dalka xaaladda hadda la gelinayo ay tahay mid dadka aysan ku wada qanacsaneen Fahad Yaasiin taliyaha nabad sugidda iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka go'an dadka Soomaaliyeed inay god ku ridaan waxaa la idinka rabaa inaad ka fikirtid mustaqbalkiina dhankiisa waxaa hadlay Shariif Sakiin oo ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed haddana musharax madaxweyne sanadka 2021 oo dhankiisa halkaas ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay madaxweynaha waxyaalo u soo tatabay oo waxaa jira dadka Soomaaliyeed ay furuntii nabadda ka aadeen tada dhibsana laakiin waa sheega maamul lagu tartamay doorashadiisa ma jirto Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah musharax madaxweyne ayaa isna waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dalkan qalalaasihiisa aan laga shaqeynin madaxweynaha wuxuu leeyahay horta waxa ogaatiin madaxweyne Farmaajo soo u yimid dadkii ugu badnaaya magaalada ka dhintay 1000 qofooda isku maalin meel ku dhimatay maalin kalena 200 isku meel ku dhimatay Cabdiqaadir Cosoble oo dhankiisa musharax madaxweyne ayaa isna goobta ka hadlay annaga waxaan rabnaa doorasho xalaal inay dhacdo dagaal sokeeye in loo noqdo diyaar uma nihin Daahir Maxamuud Geelle musharax madaxweyne sanadka 2021 waxa uu sheegay in loo baahan yahay waqti xaadirkan in loo wada istaago sidii dalka iyo dadkaba loo samata bixin lahaa dowladda hadda jirta wixii la isku ogaabay ka baxaysa Soomaaliyeed isla safnaataan loo baahan yahay midda kale mar badan waxaad baqli doontaan meelaha inta joogtaan dagaal la sameeyna kana la yeelaa 19 loo noqonaa horta 19 loo noqonaa 19 ku faa'iiday oo noqonaa Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya haddana ah musharax madaxweyne sanadka 2021 ayaa waxa uu sheegay in dalkan uu soo maray marxalado kala duwan haddii la qabto doorasho aan wadan ogol ku dhicin waxaa ka dhalan doonta dalka dawlad aan la isla ogolayn waxay dhalisaa siyaasad khalkhal dhalisa siyaasad khalkhal dhalisana waxay dumisaa dal ee dal ma dhisto madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna dhankiisa hadlay ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in la caburiyo dadka isla markaana waxa uu xusay in dhawaan Muqdisho lagu qaban doono banaanbax nabadeed oo ay markaasi murashaxiinta horjoogyaal u yihiin banaanbaxa lagu baaqay waa soo socoyaa loo diyaar garoobo waa mid nabadeed oo aan ka midnahay sida loo sheegay horena aan u sheegay haddana aan ku celinayno maalintaasi waa soo socotaa dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan ha u diyaar garoobaano Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ku meel gaarka Soomaaliya haddana ah musharax madaxweyne ayaa isna dhankiisa gabagabada munaasabada hadlay isagoo markaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysa halkaas ka jeediyay Soomaaliyeed maanta meel dib looga laabo kara ma joogno waxaan u baahanahay qarannimada inaan difaacno waxaan u baahanahay habka ugu wanaagsan oo ugu xigmada badan oo midnimadeena ku ilaashamayso inaan ku ilaalino
waxaan rabaa inaan ku celiyo annaga colaad qofeedna naguma jirto, colaad qabiil naguma jirto, colaad kooxeedna naguma jirto. qarankaan jecelnahay, waqtiyaa naga soo galay, asagaan rabnaa inaan badbaadino. ma ogolaa karna annagoo joogna in mar kale dariiqa laga leexdo. Faadumo Cabduqaadir Xasan, Raadiyaha TV-ga Dalsan, Muqdisho. shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya. hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaad u dirayso. lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horreeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE.